waxaanu joognaa magaalada Kuala Lumpur ee xarunta wadanka Malaysia magaalada nimanka ilaa dhowr kun oo qof oo Soomaaliya ayaa la sheegay inay degan yihiin laakiin dadka ugu soo horeeyay ee deegaan ahaan magaalada Kuala Lumpur waxa kamid ah Xaaj Xasan Cali Sugulle oo isagu muddo dhowr iyo 10 sanadood ay imka deganaa magaalada Kuala Lumpur Xaaj Xasan markii horena soo sheegay goordhowna uu inooga sheekayn doono waxa uu ka soo wareegay wadanka Mareykanka oo muddo dheer uu ku noolaa Xaaj Xasan ku soo dhawo barnaamijka waayahay maxaad weydiinaysaa idinku warramay Xaaj Xasan waxaan ku weydiinayaa goormad markii ugu horeysay u soo guurtay magaalada Kuala Lumpur magaalada Kuala Lumpur waxaan u soo guuray aan soo degay bishii November 6deedii 2002 marka waxaad ka soo wareegtay wadanka Mareykanka oo muddo dheer aad ku noolayd isagana muddo intee lag badeganay wadanka Mareykanka Cabdisalaam waxaan deganaa muddo 35 sanadood wax ku dhow waxaan galay maba ilaawinba waxaan galay maalintii bisha November 3 ahayd 1972 waxaan ka soo baxay bishii November 4teedii 2002 waa 35 sanadood oo wax ka dhimayay waata Xaaj Xasan intii aanad Mareykan gelin sanadkii 2007 marka bari Soomaal baad ka tagtay mise qurbo kala tii martay Cabdisalaam nolol fara badan ma soo maray oo kala jaada noloshaydu waxay ka bilaabantay inay yaro reemiya markii aan 1969 maalintii primarygii ina cigaal iyo lagu dooranay Cabdirashiid ayaan magaalada Burco la yiraahdo inta farta qad lay saaray oo la yiraahdo halkaas saxeex ayaan ka soo baxay 7 cashan waxaan sii joogay magaalada la yiraahdo Berbera 69 bishaasan ka soo baxay wadanka Soomaaliya marka waxaan inay Abu Dhabi markii aan Dubai baan si runta aan imi dabadna marka wadayay wax ma jirin dadka imka aanu tahriibta kula yaabayno ayaanu Dhabi ka tahriibnay waa lugaynay waxaan ku galay meesha la yiraahdo Abu Dhabi waxaan joogay ilaa iyo bishii afraad 69 ilaa iyo 70 bishii shanaad marka miyaad iska joogtay nin muddo mise waad ka shaqeynaysaa Imaaraadka ma alxamdulillah muddo yar maan ku shaqalayn wadanku marka sharcigiisu iska sahlanaa shaqada waa la iska helayay waanu shaqeyn jirnay ashqaal baanu shaqeyn jirnay BWD dawladda hoose dabadna sidaan u joognay annagoo 16 nin ah ayaan la yara cadaadiyo niman Hindi iyo Falastiin yaxbana yar cadaadiyay niman wax garanaya hoos u yara dhigay dabadna maalin maalma kamid 16 ka yageenin 13 baanu shaqadii risqin karay maxaan ku goosanay war maxaa xagaanu qabanaa Yurub la yiri 3 dabadeed Yurub baanu joognay ka xagee baa Yurub joogteen marka waxaanu joognay Greek baanu galay marka fiisa ma jirin wala iska galay way silli seegalay Xaaj Xasan war fiisa la yiraahdaa ma jirin ma adiga waxba qaadan anagu Dubayna kamaanu qaadan oo diyaaradda halka naga qaaday waxay Lebanon beenkiisa Lebanon tudu
dimashq bayna geysay dimashq markaa xarbigii baa weli iska socday oo dunidu waa la kala baqayay carabta markaa dimashq waxna laga qaaday lamasiin ilaa iyo Ammaan halkaas diyaaradna laga saaray wallahi inaan wax fiisa aanu qaadanay aanay jirin maba fahansanay marka deemaystir xaj xasan marka dunidan la yiraahdo aad bay imika isugu furantay xaqiiqadii barigaas ay isu furnay waar iska dhaafo barigaas ay isu furnaydeen marka waanu galay Greek baanu galay walaa waxna laga dhuftay maba xusuusniba markii aanu galay ee aanu muddo joogneen oo shaqaabana la qoray ma Greek laftiisa maraakiib baa loo yimi markabkii baan raacay markab waxaan baan raacay 6 noo Soomaaliyeed baan ku raacnay luqadda Greek ma naqaano anigu waxaan noqday shaqo gooni ah leysii oo maxay markaa water baan noqday waa mudalab سرا لحنا وسراكيله هي اللي يرعدوا بس أنت أو شقي بس كراحوا إلهي بابا إيجا هجيك للديك بوي يوح لا يرعد يو الدنيا حول بدن باون هذا النصيب كيجا شقر عسان سكيله أو نظيفة أنت دوم بام بحريان وي مدة أنت لك بعد شقدنا هي حاج حسن شقدنا وحن هي كوب يتطبعات إنك آخر كيسي ayaa waxa dhacday markab weyn buuxa oo fiican oo calanku sitay laakiin Mareykan bas ka lahaa marka kambanigii baa wuxuu mamnuucay ajaanibkii markaas si aan ugu jirnay baa la yiri ajaanibkii markabkan waa laga dejinayaa waayahay baan nidhi xageena la geenayaa waxa la yiri tigirka la ka bixinayaa dalkiini iyo meesha doontaan taga wardunudu sidan ma ahayne ana weer bad iska tagis awal yaa baray baka tigirkii aniga nin kala goosanay oo sidiq loo jiray nimankii kala mooji meel ka dhaceen waxaan tagnay Lebanon baan tagnay Lebanon baan habeenna joognay warma Soomaaliya oo tigir u goosanay am soo bedelanaa aan isku raacana agan u bedelanaa waxaynu u bedelanaa Italy Italy maxaa jira anaga is weydiinayna Italy maraakiib oo waxa jira meel la yiraahdo Genoa oo meesha maraakiibtu timaado ee laga raaco waa tagnay markaanu tagnay ayaa Itaaliya luqadda inanka kala uu yaqaan si runta xoogaa yar wax badan ma yaqaan asna Carabi yaqaan wuxuu yiri waxaan ugu tagnay 10 nin oo Soomaaliyeed oo qaarna ku qaataan lacag oo iska joogaan oo Scandinavian-kay u shaqeeyaan ayaga 6 months ba laga shaqeeyaa 6 months ma fadhiga lacag lagu siiyaa adigu halkii baan muddo joognay waa ku lacag beelay lacagteedii waan wareejinay illa man fahansan Soomaaliya soo waa meel shuuciyo lacag lama soo noqon karo marka halka ay nagu qabsatay ayaa nidhi lacagtii noo soo celiya war lacag la soo celiya ma jirtee halka ku jira lacag wada kala kala baxaa soo ma jirtaba waa yaabnay waa iska joognay adigu si aan halkii u joognay ayay xaaladda iyadu may wanaagsaneyn laakiin dunidu sidan ma ahayn guri weyn oo wanaagsan baanu markii hore dhowrin ku kiraysanay markii aanu kiraysanay naag Talyaani ah lahay hoostana restaurant bay ku leedahay gabadhii baa tidhi warsi maanku waa iska dhaqan baa jira si maanka loola dhaqmo oo oranaysa markii lacag beelaan ha iska joogaan ha iskaga jiraan kirada waa laga sugaa markay helaan inta heshaa shaqo ayay soo dirtaa dadkuna dad aaminu markaas oo oo kiradii baa leedii saamaynay waa baa iskaga jirnay imika ma dhacdaa taasi xaj xasan ma haadimka waarad ku aaminaynin qofku ringid lagu aaminayaa yar bay way dabadeedna Italy baan joognay amarka Ilaahay anigu habeenkii dambe ayaan fikiray waan war anigu shan kuma jirayee shaqo tagaya inama ila joogay
حاجات قبل يسوى لي ميلانو ميل عاد قروح بدنه ولا يقال هاي واسكا نيورغو وحله لمن كبارس ما في هذا وي marka waan tagay Milaan aan ku bariist Milaan timiye Nairobi kale ila yaqtay Nairobi maarage waaba sida koola labaro lagu soo daayay marka xageed ka bilowday deedna waxaan ka bilaabay jaamacad baan tagay University of Milan waxaan ugu tagay Soomaali inamadii saasa eeyagan wali wax xusuusnaa hal Somaliland mana Somaliland iyo Soomaaliya ba kala garanaya war Soomaali man ka imaanay waqooyiga wali abaar baa leeyahay kii wali iska tagay inaan alaatiriya yimi galabti waxaan warba hudheer jabanikay hudheelkii bikay wuxuu caawana meel ku sixinay burina meel jaban baa ku geenay inta shaqo doonaa adigu almuhiim waan ku soo noqday subax meel kala garamay jaamacadii baanu ka cuntiyo ka shaahayay nin tukriya wali meelaaw nin tukriya ayaa yaakay kaasuu yiri wariyad Soomaali maxaa doonaysaa shaqo inakeen buu askari wuxuu geeyay إدارة الحيوانات وي سيرك انترناشونال سيركس والله هاي وريقه شغلنا للسين شغل واضحه فردها مرودياش وحصل عوسينس وي marka waa carwo xayawaankii la daawanaya dhulkoo dhan baa la wareejinaya waxa la sameeynaya gymnasiumkii dadkan baasha fardaa fuula nimankan baalkaniga ka yimaado ajaabiga ruushka iyo fardahay fuulayaan fardiba hablo intay fuulaan iyadoo 100 degree ku ordaysa bay iska rogaysaa waa international circus one month baa waxa lagu dhuftay 1 year visa waxa lagu qoray lacagta wali ma ilaawo 60 gini waa lacag badan marka doolarkan lama isticmaali jirin dunida British pound baa la isticmaali jiray dunida 60 kii ugu filan ma sha Allah guriyana wanaag maalintii dambe ayaa anigu iska shaqaysta alxamdulillah joogo walakin aan ku raagin ayaa galabtii dambe la show baa la dhigayaa cultural show dadkan dee ugaadhsada ee kaymaha ku nool war geeda ay dhexda ku xidhaan nigisoo dee dabada qaawantii iyo boqonaa ku xidhaan oo dugaagara ka dhigtaan oo dee koofiyad ka dhigtaan Soomaaliya miigabna ismariyaan هاي ودلو كيسيني dadkii de kaymaha ku noolaa kaymaha exactly oo af Soomaaliga bahal baa joogta Soomaaliya bahal baa joogta oo eega caankaas waxa la bahaliglo la yiraahdo dan waan caddaanaysa dhin wad mudmudoobinaysa marka waqawanaantii meediya shabarka xaj xasan oo taa waa tan ku soo wadaay markaas ay soo taagay markaas la hindiya waxba la yiri taliyaan weyn kaalado soo xiro dharkan nooba anigu Somali not this intaas baan ku jira shacabka la tumay dhalinyaradii talyaaniga oo shacabkii tumtay shaqadiina subax baa laga bedelay oo la yiri United African marka adigu taydii sidaas ay ku soo dhamaatay shaqadii waan ka tagay dad wad sii tacabirtoo Mareykan baad qaban adeer waxaan tagay Greek baan tagay hadana Greek baa markiiba la qoray oo kambanigaba wuxuu siiyay shaqado aan ciidanayskii hor taagan markiiba iyadoo 500 qof taagantay ayaa la yeeray waa la qoray 20 ilaa 30 casho dabadeed ayaanu galay United States markabka galay markii aanu galay niyadu ma haynin inaanu degno bas ka noqono hadana waa ku soo noqono mar labaadkii baa inamadii ila socday ayaa inan ka mid yiri anigu waa daadegaya 3 baan 4 baan aan odaygu wuxuu yiri iska joogo waana diiday inaan oday 3 dayadii kale waa iska tagnaa
sidaasaan horta Mareykan ku galay state kebaad markaa Mareykan gashay ama gobolkee waxaan tegay state kaanu ka tagno way state yaroo Coney Island Long Island la yiraahdo 3 saacadood waa tareen ku socda New York baan ku jignay New York Xaj Xasan waqtiga aad gashay oo 27 aad igu sheegtay bal hadda tilmaan naga sii Soomaali intii leeg ba joogtay adeerow dadka markaa joogay waxay ahaayeen waxoogaa yaroo maraakiib ka soo degto cusub iyo niman odayaal oo 1919kii iyo 1940kii soo galay dagaaladii bay soo galeen nimankaasu may badnayn badiyoodu way dhimatay anigu waxaan ku gaaray waxaan 20 ahayn maxay ka qaban jireen markaa waqtiga New York nimanka odayaashii niman retire oo iska joogo oo makhaayid yar iska laho halkooda cuntadooda ku karsado aan dadka dhex galin bay ahaayeen aan dib lahayn oo sharaftii Soomaalida ilaaliya oo aan balwad lahayn oo yani wax dhibaato oo Soomaali ay magaceeda u soo duwaan aan lahayn isla markaa annagii markaanu galay dad badan oo dhib badan baan nagu soo biiray oo khamriyeysha yani dhibaatooyin badan oo sharaftii oo raggii Soomaaliyeed 20 ahaa ee aan loo soo dhawaan jirin ee gaangistarku ka baqan jiray adigu rag yar liitaba yimi laakiin alxamdulillah odayaashu waxay retire bay hayn gidda ka tira qabaan Xaj Xasan waayay dhowr wadan baad soo martay kumaad raagin marka baad raacday mid kalaad raacday wax xirfada oo weyn oo la sheegana maad wadanin oo aad ku shaqaysatid Mareykan markaad gashay xageed wax ka bilowday waxaan ka bilaabay markii aanu galay aanu meesha la yiraahdo Harlem baan lagu degaa anigu markiiba Soomaalida waa ka dhaxbaxay meel la yiraahdo Brooklyn baan degay nin Soomaaliyeed baan ugu tagay kaliya baan meel iska helay noloshaasu may jilacsanayn nolol aad u adag bay ahayd markii hore skill haw li sharci ma lihidi maan baa war baan tagi jirnay maan baa warku waa muruqmaal subax walba $3-6 baa iska soo bixinaysaa mar waxa lagu dirayaa 2 saacadood meelaha oo substitute meel waxa lagu dirayaa warshad 3-4 casho ah meel baad helaysaa meel wax xaraash markaa wax xaraash way sidoo ahayn baan alxamdulillah shaqayro barmanayska way muddo aad u dheer baad Mareykan ku noolayd Soomaalidii soo qaxday baa kuugu soo gashay intii oo dhan markaa New York baad deganeed misood ka guurtay mada New York waa meel qaylo badan oo dhib badan aniguna dadka qaylada iyo bulshooyinka jecel maan ahayn markaan 4 sano ka shaqeeyay ayaan magaalo yar oo la yiraahdo New England oo noodka xigta ayaan imi magaaladii baan ugu imanin Soomaaliyeed dabeedna shaqana balay kariya anoo tayda haysta amarka Ilaahay sharci malihi isla markaa labor departmentkii federal kan tagay anoo meel fadhiyaanaga tiri are you citizen yes baan iska yidhi ilaahay waa bay citizenku waxa weeye markaa ma dhalashadii waddanka haystaa bay ku tiri way yes baan ahay by the way maan ahayn Xasan waxaan ahaa James Moses yes ayuu magacaagu ahaa oo maadaan la baxay hello James waxaan kula baxay markii aan soo taagay baa short security baa la qaadanay marka uu sii dhamaanayo nin meesha ka shaqeeya odayaasha kula taliyay Soomaalida waxa tiraan bahasha waa la xirayaa qaata way nin Soomaaliyeed bay ka xiyaan war xagan ka qaata halkan ka qaado magacaaga ha sheegan ma sheegtaa ay nin James Moses sugul marka lagu wada hadli maayo marka James Moses sugulaad la baxday laguma wada hadlay adigu almiin naagtii baa ilaahay sakhira imisa sanood baad sharci daro ku shaqaysanaysaa marka 8 sano adigoo lagu oogay wax sharci ah lagu moogay waxaan ku shaqaysanayay dawladdan u shaqaynayay inaan silisanahay way municipal town kamid dawladda under the government ayaan u shaqaynayay markii dambe sharci ah shadeedna markii dambe
bayoratiga dadka meesha jooga markaa waxay ahayd inay helaan sharciga laba sigood baa lagu helayay waatay qof dumara waad guursato only sida lagu helaya saas u bixay way wuxuu tiganaya de waxaan maanta jira ma jirin marka aniga markii hore dad madow baan dhex galay oo isiri ha ku caawiyaan marka dadkii madow baa ka shakiyay way dhaqankoodii baa iga hor yimi marka waxaan ku talagalay inaanan dad madow oo Maraykan ah shaqo ku darsan isla markaa amarka Ilaahay maalmo ka mid ah gabadh baan la kulmay dabeedna gabadhaas sharciga soo saartay way Maraykan baad muddo dheer deganayd waad ku guursatay gabadh Soomaaliyeed ma sha Allah caruur baa kugu dhalatay sanadkii 2002 markaad halkan u soo guureysay yaa ku soo saamiyay Malaysia wax walba iska qadarka Ilaahay adeerow shaqada 16 sano ayaan meel ka shaqeynayay isla markaa proposal baa jiray in dadka retire-kiisa la sii dheereeyo markay retire garoobaya Maraykan markaan tii maqlay ayaan markaa 62 baa ii qoran 65 ku retire-ana way qoladii aan u shaqeynayaan u tagay waxaan ku yiri haddaan imka retire 3 sano aan early qaato wixii waqtiga aan qorana waa loo ogol yahay retire in early retirement maxaan helayaa maxaa iga dhinmaya 3 sano waxay yiraahdeen waxaan badnayn ayaad waayaysaa waxaygii baan markiiba ka kaleer gareeyay wallahi ugu filan baan waxaan idhi marka imka laga bilaabo ii qora week markaan joogayna halkan yaa ku soo saamiyay waxa ii soo saamiyay laba nin Maleeshiyaano aan caruurtu malcamada wada tagi jirtay waan ka wareystay inaan Soomaaliyeed United Nations u shaqayn jirayna ninkaas sida ruta igu dhiiriyo yiri kaalay eed markiiba aanimina maba ka tashan markaan eedaan maqlay iyo iskuul islaamiga la tusay ayaad noqoto reerka soo kaxay ina keena baanid isla markaa alxamdulillah islaamtina gaalabay ka noqotay caruurtina oo way doonaysaa meel islaam oo yar bay markaa horta sidaas ay ugu dhalisay waxay laakiin xasan meel aan afkii garanaynin deyn kasto Ingiriisi markala wadatay oo dhaqankii waddankaanad garanayn oo Soomaali fara badan oo kaaga soo horeysay aanay jirin sidaad ula qabsatay waxaan ula qabsaday marka ugu horeysa aan 30 sanaan joogo waddankii adeer nin Soomaali dhexdiga maan ahayn markaan single ka ahaa weligay internet Soomaaliyeed soo kaxay ma oran guriga la karayso sida kale aan u jeclaa oo la bulshayn jiray marka waxay keenay inaan caruurta meel sababara oo aan gidaar la istaagayn mar haddaan kari karaynin Maraykan meel qaaliya inaan ku kuriyo halkan aan imi waxaan degay Burcidla aan weliga dad Soomaali lagu way oo one gate laga galo alxamdulillah dabadna khalaas sidaan u joogaa 12 reer ugu timi 12 reer way xasan wadankii waa degtay waxa igu maqaalo aadna adiga sheekaysay in dabadeedna aad noqotay dadkan Soomaalida caawiya markay timaado ku caafimaadkii caawimaada caawimo kale ma geystaadeer markii aan imi hal dhakhtar baan la kulmay dhakhtar wanaagsan oo specialist oo noo dhakhtarad noqotay dhakhtarkii sidaan ula xiriirayay ayuun baan dad isla family-ga ah keenay adigu halkaas ka bilaabantay dad fara badan aad u fara badan oo Soomaali ah oo meel walba ka yimi ayaa igu yimi marka anigii nin intaas oo dhan shaqeynayaan ahay gurigii waagu igu bari karo gobolku iguma dhici karo maba kari karaba sida awgeed waxaan goosay inaan dadkan karaanka caawiyo
reerkaygu way iga qustay islaantu burberigii aad shaqayn jirtaa badna soo koolgarin jirtaa baba alxamdulillahi rabbil caalamiin maan qasaarin oo adduun dee haddaan adduun ka qaadanayo waan dhergi lahaa laakiin adduunkama jeedine alxamdulillahi rabbil caalamiin dee dad badan baan caawiyey welina sidii baan ugu wadaa intee halkan kugu soo martay marka caafimaad doon dadkaa imika aniga ii yimi waa ilaa iyo 2011kii horta 70 people waa yihiin asbatalka inta timi ka badan weliba imika 2 sano horteed ba aad u iman jireen inta badan xanuunada la yimaada waa maxay xaaji xasan adeero waa xanuuno anigu aan ka yaabay manaan garanayo maan miidhahayaa waa iska qadar ilaahay laakiin xanuunada badidooda shaki baaba iga galay kansar weeye ayaa u badan cudurka lala yimaado waa kansar wax tiibi la yimaado waa yaryiin wax cudur iyo wax dhaawaca laakiin waa kansar dhammaanna waxay ka yimaadaan geeyiga Soomaalida miya geeyiga Soomaalida ka yimaadaan bogcad kaliya oo Soomaalida ka mid ah xagga bay boqol anu kama arag ilaa xamar ilaa mudug togdheer galbeedka inta aad ba looga yimi meesha kaliya laga iman aan qof qurigeeman waa ergaab waad leedahay qof kaliya ma darago halka ka yimi oo xanuun ka qaba inaan yaroo nabar ku dhalato dabadna caabuqay oo yaraydo koobiyo bilood jirtay mooyaane wali qof kansar qaba ay imayna imika markaa meed ku xasishay halkanoo caruurtaadii waa waaweynaadeen adii xaajiyadii uma ka warhayeen halkan joogtaan meed ku xasisho waad degaysaa xaaji xasan mise waad sii socotaa haddana wallaahi horta niyow waxaan ahay dhibaatan leeyahay ninka markuu meel dego ama shaqo keela iska fariistaanahay dadka guryaha xitaa ma bedelo imika halkaa insha allah hadda caruurtii waddankii bay ku wada noqotay Mareykan aniga islaantii baa joognaa hadda bishan baanu decision gaaraynaa inaanu Hargeysa ama Burco tagno iyo inaanu halkan sii joogno xaaji xasan cali sugulle aad iyo aad baad u mahadsantahay mudan